Maanta ayaa waxaa la soo gabagabeeyay ziyaaradda Akhwan Cabdo oo maalmihii la soo dhaafay ka socotay masjidka waxaana ka soo qayb galay dhalinyaro, odayaal, culamaa u diin kuwaas oo kala ah Axmadiya iyo Qaadiriyada. Marka la soo gabagabeeyay ziyaaradda ayaa waxaa ugu horeyn hadal kooban halkaasi ka jeediyay imaamka masjidka iyo dhalinyarada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta galabtan oo maalin ay tahay maalin Sabti ah, galab Sabti ay tahay waxaan joognaa banaanbixii Akhwan Cabdo. waa u jeedin xilqada aan ku dhex jirno waa xilqadii Axmadiya Qaadiriyana xaggee joogta. marka anigoo idin la hadlayo waxaan ahay imaamkii masjidka Akhwan Cabdo ahna khatiibkii in salaamaya dhammaantiin meel walba ay joogtiin insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن جوجنا زيارة بنامبه أخوان عبدو إن شاء الله تعالى زيارة مقبولة. عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، رمضان كريم. ما تأدي هذا يوفر أحسن وحكوسنا هاي ميدان كمساجد أخوان عبدو. وحن جوجنا زيارة دي شيخ عبدو أما أخوان عبدو بنامبه سوية أدي هذا يوفر أحسن ما شاء الله. رمضان كان رمضان كيسي إلهي بالأمن والبركة إلهي نقول قارسيو. سنة كان سنة كيسي إلهي نقارسيو يا الله نهاي دمبان سيني وحيدين لنا نهاي رمضان مبارك. ugu dambeyn ayaa waxaa hadalka qaatay imaamka masjidka Shariif Khulatayn. ومانتا نو زيارتنا وأخواني حافظ الدية خاصة أهل لانتا سيدحات إلها نو أقبلوا زيارته وقال إن شاء الله تعالى مالين 4 لبلاوي أو مالين جمع قرآن خاتمة مانتنا يوم السبت بنامبه ميل كسو لغي ماضي خادرية أحمدية زيلة يا رفائية زيارة شعور كتن دد كتن وفرح سني ما شاء الله إن شاء الله تعالى إلها قارسيو إن شاء الله تعالى أنا قد إلها نغا صوابي. ziyaaradana ayaa sanad walba lagu qabtaa magaalada Baraawe xilliga bisha barakeysan ee Ramadaan.